gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Muungaab ayaa dhagax dhigay dib u dhiska xarunta cusub ee degmada Shangaani taas oo ah markii ugu horeysay ee xarun rasmi ah loo dhiso degmada muddo 50 sano ah kadib markii aasaaskeedii hore oo gabi ahaanba burburay degmada Shangaani oo kamid ah degmooyinka taariikhiga ah ee caasimadda ayaa muddo dheer la daalaa-dhacaysay baahida adeega bulshada iyo xarumo maamul sabada dhagax dhiga oo ay ka soo qayb galeen suuliin heer kala duwan leh sida odayaasha deegaanka haweenka iyo dhalinyaro ayay odayaasha dhaqanka uga mahad celiyeen gudoomiye Muungaab iyagoo sheegay inuu yahay mas'uulkii ugu horeeyay ee il gaar ah ku eegay horumarinta iyo dib u magaaleynta Shangaani halka mas'uuliyiintii xafiiska ugu horeeyay ee indhaha ka laabteen xaaladda degmadani oo diris la ah aqalka dawladda hoose gudoomiye Muungaab ayaa dhankiisa ballan qaaday in maamulka gobolka Banaadir oo si buuxda uga shaqayn doono kobcinta iyo dib u dhiska degmada taariikhiga ah isagoo xusay in la dhisi doono xafiisyo casri ah oo bixiyo adeegyada aasaasiga ah isla markaana dhismaha cusub oo noqon doono mid dabaq ah si waafaqsan qorshaha casriyeynta caasimadda duqa Muqdisho ayaa sidoo kale ku baaqay in shacabka degmada Shangaani ee kaalin muuqdo ay ka qaataan dib u dhiska iyo bilicda deegaanka isagoo ugu baaqay muwaadiniinta weli dibadaha ku maqan in dalkooda ku soo laabtaan guryahoodana dib u dhistaan si ay door firfircoon ugu yeeshaan horumarka guud ee magaalada Muqdisho dhagax dhiga cusub ayaa calaamad u ah bilowga marxaladaha dib u soo nooleynta ah ee lagu xoojinayo taariikhda iyo hidaha degmada Shangaani taasoo qayb ka ah dadaalada duqa Muqdisho ee lagu horumarinayo degmooyinka gobolka Banaadir waxaan rabaa inaan u hambaleeyo shacabka degmada Shangaani iyo maamulka degmada Shangaani oo aan maanta halkaan loogu dhagax dhigay dhismo casri ah oo cusub iyo dayactirka qaybaha kale ee xafiisyada oo halkaan ka dhagax dhigno oo laga sameey doono hadii la yiraahdo shaqada halkaan aan ka dhagax dhigno waxay ka koobantahay laba qaybood guri cusub oo casri ah oo la dhisaayo oo asaaskiisa la soo bilaabayo iyo xafiisyadan kale ee labada dhinac ah oo ayagana dayactir wanaagsan oo casri lagu sameeyo hadii la yiraahdo arrintaas marka waxa way kamid tahay qorshayaasha guud ee maamulka gobolka Banaadir uu ku doonayo in uu maaragtay kaabayaasha dawladeed ee magaaladan oo dib u dhis oo ku sameeyo hadee degmada Shangaani waa wada ogsoontihiin waa laga sheekeeyay waa degmo taariikh weyn ku leh Soomaaliya ku leh Muqdisho waa degmada ay xadaaradda xamar iyo Soomaaliya ay ku faantay ay ka soo askunta waay Shangaani waa maasantiin marka degmo oo maqaamkaas iyo magacaas ku leh xamar iyo Soomaaliya waxay xaq u leedahay in ay kaalinta koobaad uga jirto ama ay ka hesho yani dib u dhiska iyo horumarka caasimadda ka socdo Shangaani waxay mudan tahay inay kaalinta koobaad ka gasho sidaas daraadeed ayaan xarunta maamulkeeda loo dhisayaa waa maasantiin waa maasantiin annaga markaan xafiiska nimid waxaan xil iska saarnay in aan daadejino maamulka iyo adeega bulshada si bulshada heer degmo waax iyo laamba u gaaro adeega ay dawladda hoose bixinayso si marka taas loo xaqiijiyo waxaa laga maarmaan ah in la dayactiro la dhiso xarumihii bulshada loogu adeegi lahaa si ay maamulada degmooyinka iyo waaxaha laamaha ay ugu fududaato inay si degdeg ah uga jawaabaan cabashada iyo baahiyaha ka imaanaysa bulshada ku dhaqan caasimadda
waxaan rabaa marka reer Shangaandhi maalin hore ahayd markii aan dhammaan laamiyada dhex mara degmada Shangaandhi kulligood aan dhagax dhignay oo aad ogtiin in dhismo ka socdo dhammaan laamiyadii maantana waxaa dhismo casri ah lagu sameynayaa xaruntii maamulka Shangaandhi hadda marka waxaan rabaa inaan adkeeyo baaqa Sheekh Maxamed oo iga hormar Ilaahay khayr siiyo oo ah in Shangaandhi oo hadda magacaas iyo taariikhdaas leh say hadda muuqaalka ay leedahay inay saa dhaantaan rabnaa sida daraadeer qurbo joogta Soomaaliyeed ee magaaladan ka qaxday mashaakilaadka xilliga uu jiray hadda waa laga gudbay xilliga dib u dhiska la joogaa ku soo laabta kuwa joogana ha dhistaano guryaha jajaban kuwa ka maqan ha soo laabtaano ha dhistaano waxaan rabnaa Shangaandhi waxaan rabnaa haddii la yiraahdo Shangaandhi iyo degmadeeda iyo laamiyadeeda iyo guryaheeda inay isku ekaadaan rabnaa haddii la yiraahdo marka waxa waaye sidaas la idinka rabaa inaad wadooyinkaas iyo xaruntana nadaafada iyo bilicda inaad ku dadaashaan la shaqaynta hay'adaha amniga nabad sugidda iyo booliiska inaad garab siisaan arrintaas oo mar walba dad nabadeed aatiin oo la idinku yaqaano canshuurta inaad bixisaan arrintii dimuqraadiyiinta maamulka caasimadda ee ka bilaabatay degmada Shangaandhina waa soo dhawada doorashadiina inaad u diyaar garoodaan codkiina inaad dhiibataan oo maamulka heer degmo iyo heer gobolba idinku maamulaayo madaxdii inaad doorataan haddii la yiraahdo intaas iyadana waxa waaye waan idinkula dardaarmayaa shirkadda dhisayso xaruntan waxaan ku leeshiinay inay guri casri ahna ka dhisto shanta sare ee soo socda gurigaas wixii cilad farsamo ku yimaadana shirkaddan ku leeshiino ka saxiixnay inay iyada dayactirayso muddo 5 sano iska dhis oo ka tago biriha ku dildilaaca maahan taama yeelino waxaan rabnaa waxay dhisayso inay iska hubiso muddo 5 sano wixii cilad ee farsamo xumo ku yimaado shirkadda dhisaysa laga rabaa dokumentigaasna waa ka saxiixnay warantigaasaan haysanaa kadibna anaga dayactiri doona wixii 5 sano ka dambeeya haddii la yiraahdo laakiin waxaan anaga iskaaga dheelno kuma jiraan waxaan anaga iskaaga dheelno kuma jiraan waa wixii cilad farsamo xumo ku yimaado oo qaab dhismo xumo ku yimaado marka waxaan leenahay shamiido wanaagsan iyo qalab casri iyo tayo leh degmada noogu dhiso degmo maaragtay magac iyo maqaam weyn kule waxaan rabnaa marka guriga inuu noqdo guri qurux badan xaruntana ay noqoto xarun qurux badan haddii la yiraahdo waxaan rajaynayaa inaan dhowr bilood gudahood aan halkaan u nimaadno annaga oo insha allahu tacaala xariga ka jarayno degmadii cusbeed ee Shangaandhi mar labaad iyo mar saddexaad shacabkii maamulka Shangaandhi waa idinkaga mahad celinayaa soo dhaweyntiina guuleysta horumar baan idin rajaynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala